ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه السلام. intaa kadib dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda magac iyo mansab kasta uu ku fadhiyo waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. salaanta ka bacdi waxaan isku dhaweynayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda waxaan idinka mahad celinayaa ajiibista aad soo ajiibteen xafladda wicitaanka aan soo wacnay. waan ka mahad celinayaa. waxaa kaloona mahad celinayaa runtii bahda saxaafadda sida quruxda badan loo soo agaasimeeyey ciddii u soo agaasintay intaba waan mahad celinayaa. intaas mahad celintaas ka hor dhammaan mahad waxaa iskale allah. mahad aan la koobi karin ilaahay baa iskale. isugu kan keenay oo keliya ma aha, laakiin mahad dhammaanteed baa iskale aynaan koobi karin. fa in tacudu nicmatallaahi laa tuxsuuha. mahad celin aan la koobi karin ayaan ilaahay u mahad celinaynaa dhammaanteen. intaa kadib ujeedka xafladda waxay ahayd inaan sheegno shareholderskii ama saamileydii hore wax ugu darsaday labadii sannadood ay shaqaynaysay wixii dividenti ay u yeesheen u heleen, iyo inaan furno maxaa la yidhahdaa sheer cusub. shirkaddu 2 sannadood ayay faa'iido bixisay siisay dadkii hantida ku darsaday. sanadkii hore waxay shirkaddu faa'iiday 8%. waa ogtihiin Roma maalin lama dhisin. sanadkii ku xigay hadda ah shirkaddu waxay faa'iido bixisay 15%, almost ku dhow 100% wax ku dhow. marka waxaa jira kor u socod hore u socod baa jira. sababaha kalifay in shirkaddu ay furto sheerarka dabcan waa wada lahaanshaha qof kastaaba inuu yeesho hantida shirkadda inuu wax ku yeesho. macmiil baad ahayd shirkadda ku hadla isticmaala internetkeeda. macmiil baad ahayd voicekeeda isticmaala. waxaan rabnaa inaad noqotid macmiil ninkii ownerka ahaa ama qofkii dumarka ahaa ownerka ah shirkadda lahaanshaheediina inaad wax ku yeelato si uu dadku wada yeesho. waa xaqiiq. in badan waxaa aragteen ama aynu aragnay ama dhagaheenna ka buuxdo ama dad inaga mid ah ehelkeenna ah qofka aanay ku dhicin ay ku dhacday lacag meel uu geliyey iyo cid uu dhiibay maanta midna aanu ka jawaabi karin. wariyaa ku hayay maxaa lagu shaqayn jiray? dadka qaarkood baan weydiiyey shaqada maxaa lagu qaban jiray marka qof sharci karaya ma jirin. waxaa jaanis ah runtii in maanta dad aan maaragtay in shirkadda oo sida guddoomiyaha uu sheegay ka soo jeeda dahabshiil in wax lagu darsado. arrintaas waa arrinta aan caawa u wada joogno inaan idiin soo bandhigto reer hiiraan. waxaan rabaa intaa inaan ku daro annagoo kusoo dhaweyn doona guddoomiyaha gobolka. waxaan rabaa inaan wax ku daro dahabshiil ama somtel dahabshiil group. runtii xaajigan hadda yaro weydiiyey waxaan ku 3 sannadood buu bangigu furan yahay. 3daas sannadood oo bangigu furan yahay microfinance wax la yidhaahdaa jiro oo microfinance macnaha waa amaahaha yar deymaha yaryar inta guud sida guud oo inta ay noqotay 3 sannadood uu furan yahay. sanad kasta 6 milyan iyo siyaado ayaa dadka reer hiiraan lagu investigareeyay oo dakhliga lacagtaas waxay gashay reer hiiraan bay gashay. dabcan ayaguna way soo celiyeen, laakiin waxaa lagugu aaminay lacag 20 milyan kor u dhaafisa 3 sannadood. waxaynu isla ogeyn gurmadkii waqtigii hadda dhibaatooyinku dhaceen dahabshiil group si waxay uga jawaabtay aada positive u ah oo ahayd in lacago ay keentay gobolka. waxaynu ka warhaynaa in reer dahabshiil ay yihiin
horseedka gobolka sida guddoomiyaha iyo labada guddoomiye isaga markhaati kaceen xaaji cusmaan inaguna aan wada ognahay runtii gobolka dahabshiil waxbuu taray runtii sida awgeed waxaan u furnay xafladdan u furnay sheerkan in dadku ay dareemaan lahaanshiyaha shirkadda inay dareemaan oo qodobka labaadaan u furnay runtii waxaan qaadanaynaa talooyinka oo dhan oo laga soo jeediyey halkan sida nabadoon haddaan khalday taytarka kolley odayaasha dhaqan ka mid ahaa oo ka hadlay oo yidhi waxaan rabnaa in la kordhiyo nadwaaga shirkadda nadwaaga shirkadda in la kordhiyo waxa aan rabno runtii taawar kasta oo meel laga taagay qofka deegaanka ugu dhow inuu lahaanshihiisa leeyahay taawarkaas oo ilaashado marka runtii waxaan rabaa inaan halkan ka yaro markhaati gashado xaaji cismaan aan mar labaad soo celiyo ujeedka xafladdu intaasay ahayd aad baan idinkaga mahad celinaya ajiibista soo ajiibteen waxaan rajeynayaa dabcan inaad wax ku darsan doontaan kambaniga inaad wax ku yeelan doontaan masalan qofkii ku darsaday sanadkii koobaad $10,000 sanadkii koobaad wuxuu faa'iiday $800 8% kii ku xigay hadda ahna wuxuu faa'iiday 1,500 2,300 premium value-hiisiina wuxuu kor u kacay 40%. qofkaasi 6,000 iyo siyaado ayuu haystaa maybe sanadkanna ilaahay idankii kolle ganacsata iyo dadku ganacsi waa lagu wada jiraa ganacsigu wuxuu leeyahay horusocod iyo dibdhac khasaare iyo faa'iido intaba uu imanaya laakiin sida qorshaysan aan u qorsheynay ilaahay idankii waxaan rajeynaynaa inaan hore uga hinqanno halkii aan hadda taagnayn marka waxaa dhici doontaa runtii mar soo dhow insha allah in la yidhaahdo sheerku $100 waxaa lagu kabayaa $300 sida hadda aynu arkayno shirkadaha dariska ah sida awgeed kolley waa dhiirigelin taas waxaan ilaahay weydiisanaynaa casa wajalla in dhammaanteen mas-uuliyadaha aynu hayno inuu ilaahay noo sakhiro annaguna xil qaada eed qaada xilqa aan qaadanay in ilaahay noo yasiro oo sanadka ku xiga isla goobtan ilaahay idankii annagoo faa'iido ka badan qaybinayna in ilaahay mar labaad